بسم الله الرحمن الرحيم سود هذا هذا شغل لقى يمي هورا لايف لقى سوق له سو هاد ها السلام عليكم سود هذا هذا شغل كإمادي هورا لايف لقى سوق له ما أنت حالة دواء إسكب كعصنت سود هذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سود هذا بسم الله هسان آد وجعله يا ويقعدان فنانين تم وقوية أمريكا وكله قينين كلا ضد المريرة وآد أنا وجعلها جرت هسان كبلاويا ما دام waxaan ka hadlayaa dhalinyaro tahay marka soo dhawaada in leeyahay الله صدوا على محمد بقنا صدوا محمد باهر صدوا عليكم السلام عبد الفتاح من السلام يرجعي برنامج سكرية ولا وأكو سلامي أدبا كل سلامة يا سكرية أنا يرضى عن جعلها بكتا ما شاء الله وأكو سلامة يا صوب وهذا halkiyan kudhalanayo dalkii hooye wana dararna habooqano ahadeena ku dhexenmiya halkiyan kudhalanayo dalkii hooye wana dararna habooqano ahadeena ku dhexenmiya Wait.
urura share garay barnaamijka share garay qodaba dhacda nooga daran dhulku magaceeni garay haween lama dhaafiniyo dadkii lagu dhaadan jiray حسن بينهم والله دعذوبا قدب دعذا نوغا دران دلكو مقاعيني قري حاول لما دافنيو تدكي لغو دادن جري دقال اسكو درسنا دمان اسو صوفحو يانو دعي صوبيني كعدون كدب نوغا ديغا دلنيرد ما انت الله الله دلنيرد ما انت صوبح له يونو الاسودي دلنيرد ما انت الله الله وحلم دورا كري نواق ملوك عاي ومقردي ديوك عاي ومحيدي لهوك عاي دمير كويتان ديوان بكينا دفاع عني خلاص ما رفتا كان دفاع عني وحلم دورا كري نواق ملوك عاي ومقردي ديوك عاي ومحيدي لهوك عاي دمير كويتان ديوان بكينا دفاع عني ونولي لهوك عاي عليكم السلام عبد الله عليكم السلام soo dhawaada aad baan inii salaamayaa intiina ku jirta aad iyo aad dad qiimo la ku jira maasha Allah soo dhawaada waa nadiif qaran waa midnimo qaran group adan shaqo ka imaado wallahi inaan xataa dharku ma iska bedelay horaan ka soo fariist marka waxaan in leeyahay horta wax badan ani waa taqaanin wax badan dhalinyaradan gubaamin jira wax badan dhalinyaradan dalili jira wax badan dhalinyaradan maxay ahayd aan cambaarayn jiray maanta laakiin horta marka hore marna waan faraxsana marna maxay ahayd waan murugaysna mar waan faraxsanahay oo dhalinyarada inta aan u cabaaday dhalinyarada inta aan la hadlay dhalinyarada inta aan lahaa war xagee aadeen hooyo inteed ku maqantiin maanta horta waxbay garat marna waan murugsanahayo dee raggii soo baxay dhalinyarada aan ku tabacnay aan ku baanay aan ku hoognay aan rafaadka wax ku soo baray aan ku soo تيري تعبيلي أيا نلك الدلي أو الدلايا أو سي سهلة أو سيمبلا ويلي بلو الدلايا أو سي سهلة أو سيمبلا الله ينايا مركا تاس وامرو يدو وان كتعسينا يا هرت ويلكي لو دلي جرو قال كعي لو دلي وان كتعسينا يا وحن ليه إلهي دتك وكبح سمر إيمان كسيو دلني يرد سمر إيمان الله كسيو ومدة الصومالية سمر إيمان الله كسيو عرورتي يقبل لو رجعي iyo gabadhii masayda loo saarana waxaan leeyahay qalbiga Allah ku qaboojiyo muxuu ahaa waa dib maalin walba mara waa dib maalin walba taagan waa maalin walba wax nagu dhaca waay wax adiga aad u horeysay ma waana wax hadaynaan ka gilgilan oo ka istaagin soconayo waay waa wax hadaynaan ka kicin nahaysta waay marka waxaan leeyahay ilaahay qalbiga ha ku qaboojiyo waan kula joognaa waan kula jiraa garabkaagan taaganahay ilaahay waxaan ka baryayaa kii dhibka geystana si fudud inuu ilaahay gacanta بلاي أنا لقرني إنه الله أصدره يوحي كده ميبا برورتا وان لقيب سنة يا قويسكي وان لقيب سنة يا دلنيرة وان لقيب سنة يا وحن لقيب سنة يا عرورتي وكتجا لقيب سنة يا قبل أسيد ودان لقيب سنة يا مروبتاس وحن ليه هاي وامد إنه وذا تابت وان مد عن وذا دريمي إنه وحن كلها مركا إلهي قلبك حقوق بوجيه السجن قبرك يسأل الله النوريو سمري إيمان الله ينقصيه إنتاس وتعسيد عن درايم markaan tacsida ka soo baxo maantay farxadda ugu weyn ay haysa waxa way dhalinyarada horta garowe aad baan idinku mahad celinaya waxaad tihiin ku dayashaad mudantiin mar haddaad dareenteen wixii aan ka qaylnay anagu markaan hadalo waxa la dhihi jiray qabiil waay ها reer hebel ka soo jeeda reer hebel ka soo horjeeda hebel bay ku kacsan tahay hebel ba dad ba u danaanay laakiin maanta hadaad dareenteen 20 sano meel madax ahayd 20 sano meel ku faanaysay inay madax tahay 20 sano meel horumar haysatay maantana dhibka aad sheegaysaan iyo horena aan ogeyn markaan ka hadalana anaga nala ku cayn jiray horta maanta hadaad idinkoo dhalinyaradii aad dareenteen ood ka kacdeen ood ogaateen inaad tihiin tiirka wadanka inuu idinka yahay تيركا نينكاس علوشي وشقيستها إيا كان متعلن ألف باء تا أنا قوانين إيدينكا إني قميسانايا إيدينكا علوي شلنكيني محايتو إني كدو ليسانايا قال كعيو دلن يراد جوكتا وان مهاسنتا هاي بيلدق
beeldaaq waa iisoo qoray garow waa umaleynaa gaalkacyo sorry dhalinyarada reer gaalkacyood waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baana idinku mahad celinaya waxaana leeyahay waa wax mar hore laydinka rabay waa wax mar hore laydinka rabay sababtoo ah waxaad tihiin dhalinyaro aad wax u baratay waxaad tihiin dhalinyaro maaragtay muddo ummadda dhan ka badan dhalinyarada iyo odayaashan inay gumaysanaya iyo qabqablahan inay haysta ee inay gumaystay waxaa ka badan idinkaa ka badan 99% idinku dhalinyaraad tihiin haddana mutacalimiin baad tihiin haddana dulliyiin baad ahaydeen laakiin maanta heeryadii baad tuurteen kuwa kaleeto oo gobolada kale joogan waa idinku dayanayaan sababta ah hormuud baad u noqoteen sababta ah wax badan baad hormuud ugu noqoteen waxaan idin leeyahay marka heesta maxaa ka mid ahaa yay inaga toobin oo inaga noqonin wax hal mar laga kaco horta aad iyo aad baan idinku mahad celinaya hadaladii aad ku hadasheen iyo qiiradii aad jeediseen iyo sidii aad wax u dareenteen waa idinku hamalyeynaya waxaana in leeyahay iska dulqaada gumaysi waaye gumaysiga carabta iyo Ethiopia iyo maxay ta Kenyaatiga u shaqeeya ee shilinka iyagu haysta ee iyagu in gumaysta idinkana nolosha in ku ciriiriyo iska dulqaada ugu taga meelahay joogaan ku garaaca meelahay joogaan ka saara xafiisyada idinku ka noqdo waxbarasho isbitaalada ka saara ka noqdo idinku dhaqaatiir idinku kaca oo wax qabsada sida aad sheegaysaan iyo sida aad isugu guwaabinaysaan dhab hayni ka noqoto nin kasta dhaqaatiir baad leedihiin injineeraa leedihiin mutacalimiin baad leedihiin dad wax bartaad leedihiin idinku ka shaqaysta idinku taga idinku maxay ahayd kuwa wax maamulo noqda yoo in gadanin oday muxuu ahaa dhiigga islaamka ku naaxay oday gabar markii la kufsado magteeda ku naaxay oday gabar markii la kufsado dhiiggeeda ku naaxay wiil markii hadda awal gabdhahay ku naaxsanaayeen gabdhahay awal dhiigga ka qaadan jireen gabdhaha bay awal ku naaxsanaayeen gabdhahay dhiiggooda ku naaxeen oo markii la kufsado ama la dilo ama uu jajabiyo kan qaba ay ma ka qaadan jireen oo ay dhihi jireen gabadhana intay neef u qalaan shafshafa inta kalena iyagu ku qayili jireen maantana idinkayni ku dareen dhalinyaraday ku dareen marka taa haddaad dareenteen horta guul waay aniga horta guul bay ii tahay nadiif qaran ahaan guul bay ii tahay because wax badan baa laygu caay wax badan baa lay dhahay dhalinyaradan wadankan dhalinyaro ma lehe dadkan ma kacayaan maxaa ku daaliyay maantay farxadaydii u weynayd baa taagan calan baa ii suran maanta maaragtaa gadaashay waa buuxdaa inta waa buuxdaa maanta calankaygaa taagan nabadaydaa taagan farxadaydaa taagan inkastoo tacsi i hayso laakiin kaas dhintay wax aan kaga samraa maanta ii muuqata kaa dhintay inuu mar kale igu soo noqonin wax aan rajaynaya ii muuqata waana idinka guushu waa idinka dhalinyaradiini maanta kacday dhalinyaradiini maanta hadashay dhalinyaradiini maanta ka dhawaajisay runta ka dhawaajisay wixii anaga nala ku cayn jira haddaan midnimo qarannahay 4 saac aniga Jamiilo muxuu ahaa walaalkay Axmed Boos muxuu ahaa ninka la dhaho Maxamed Dhaqan qofta la dhaho boqolaal aan kaga qaylin jiray nala ku cayn jiray maanta horta haddaa runta sheegteen aad iyo aad baan idinku faraxsanahay laakiin maxaan in leeyahay wili leyd ma tihdin wili waad caymataan wili 3 baad maraysaan laakiin awal anagaad na fiirsan jirtaan gabdhaha inta la kufsado fayl laga galo oo xabado lagu dhifto baa inta la soo qabto la sii dayn jiray inta mag laga qaato maanta idinka inay taagan tahay maanta marka sida aad u hadasheen iyo sida aad u kacdeen iyo sida aad u dareenteen in ciidda idinku leedihiin waxa la gumaysanayo waxa la duleynaa inuu idinka yahay waxa dhiigooda la cabayo inuu idinka yahay waxa wax intay barteen baaga muddada ahoo badda ku dhamaada darbiyada taagan wada silicsan idinka ayeen kulligeen wada ismoo karaan wada barateen because qof dhan oo mutacallim oo intaasoo sano lagu soo تعالى أو مركو وحبرشيد لما يعمل ودقاق لهين ماله كشقي لهين أضي ألف بيضة أو وحو قرنا يجرين أو قبيلة استا يكو انتو دي بدأ انكتغ نولاش كدعي أو داوة قاطة كل الدادك داوة قاطة إذنك إني شقيا كل منتل كهل كان جوي إذنك إني شقيا إذنك قبليه نقول سدان إذنك إني ماذا maxaa keenay wiilal baa wadatiin maanta wixii halka taagnaa dhalinyaro ahaayeen kulligoodna waxa laga yaabaa 4 iyo 5 inay guri kale yihiin kan dibadda ka taga intuu u tago oo isagoo ama xabsi ka soo baxay ama juquraa ah ama nolosha ka dhacay ama maxay ay tahay mentala oo darooga qaata buu haddana guursada because idinkaan wax iska dhigin idinkaan meel isgaarsiin maanta laakiin ilaahay mahadi waxa ah maanta ilaahay mahadi waxa ah oo aan kun jaro waxaan dinaya oo salaad shukri u tukanaya oo ilaahay u mahadnaqaya in maanta dhawaaqayga meel dheer gaaray
in maanta dhawaaqa iyagu uu ini taabtay in maanta aad fahanteen wixii aad barateen war haddaad dhimato waxaad dhimanaysaa adoo xor ah laakiin ha dhimanin adoo dulli ah dhimo adoo xor ah oo halkaa taagan dhimo adoo xor ah oo kuwa kaa damay codka aad ka tagtay boqolaal kale u badbaadinayo dhimo taasaan ku leeyahay dhalinyaradu meel kasta aad joogto haddaad Garowe joogto haddaad Gaalkacyo joogto haddaad Koonfur Galbeed joogto haddaad Jubbaland joogto haddaad meel walba joogto haddaad Beledweyne everywhere aad joogto dhimo adigoo xor ah ha dhiman adoo gumaysi ku jirta badbaadi midka kaa dambeeya haddii adiga lagu dilo inta hadalkaaga lagugu dilo wax badan baa soo baxaya dad badan baana adiga sababtaa ku badbaadaya magac iyo sharafna waad yeelanay ilaahayna karaamuu ku siinaya adduunkana magac baad ku yeelan oo weligaa jiraya magacaagu ma dhimanayo xataa haddaan ilmo ka tagin magacaagu weligii wuu taagnaanay laakiin dullinimaha qaadanina idinka waaye kuwa isduleeyay idinka waaye kuwa isdilay idinka waaye maantay in isbitaaladii layni ku daaweyn waayo oo maaragtay aad ku dhimataan in idinka layni ugaarsado inaad maaragtay dhaqaaqi weydaan ina idinkoo waxbarashadii dhammaysto wada jaamiciyiina aad darbiyada fadhidaan war odayadan ina haysta ee duliyiinta ah ee wada dibadaha guryaha ka wada dhistay ee dabaqyada wada dhistay ee ilmahoodu dibadda jooga waxa baaba'ayo oo dhimanaya waa idinka waxa la dilaayo waa idinka waxa silca wax ku soo barta waa idinka kulli nimanka inii shaqeeya hal nin oo ilmihiis gudaha jooga ma jiro hal nin oo gudaha jooga ma jiro kii kaleeto oo xataa gudaha jooga shaqo isagoo alif beed aqoon wax loo dhiibayna maalinta uu meesha jagada ku fariisto wuxuuga lacag urursada dibadda guriga ka dhistaa reerka dhan uu raraa isaguna uu ka daba tagaa noloshaasaad ku nooshihiin iska qabta dadka wada dulliga ah sidaa u kacdeenna waa inaad isu difaacdaan waa inaad naftiina u badbaadisaan waa inaad naftiina u badbaadisaan waa inaad isu gurmataan waxaan leeyahay ha ka suginina dowladda 30 sano wax inii qaban weysay ee intii wadanku burbursanaaba aan dowladda ahayn wax inii qaban weysay maanta wax inii ma qabanayso hal dollar ururiya annagana farnaysin baa inii samaynaa aniga oo nadiif qarana baabuurta inii dhaqaa gurigayga hortiisaan ballan ku qaada inaan baabuurta inii ku dhaqo intaan tuba inii gashado $2 dhaw maan ku dhaqo idinku isu kaca idinku isu gurmada idinku dhista isbitaaladiina idinku ka eryada qurunkan meesha inii fadhiya iska saar guryaha ugu taga ka saar guryaha ugu taga yay fadhiin xafiisyadiina yay fadhiin yay ini dulaysanin iska saar ka damana idinku ka shaqaysta wadankiinana hormarsada war wadan dhalinyara hormarsa war turki miyaydina arkin turki maalintii afgambigiisu dhacay dhalinyaro idinkoo kala bay ahayn wixii baabuurta isu dhigay iyo odayadayaduna waxay ka shaqeeyaan gabadha la kufsado magteeda inay raadiyaan wiilka la dilo magtiisa inay raadiyaan taasay ka shaqeeyaan odayadeen dhalinyaradayan maxay ka shaqeysaa qabiilkay ka shaqeysaa idinkana qabiil baa laydinku kala dilaa odagaan magtiina qaadanaya odagaan gabdhihiina magtooda qaadanaya odagaan wadankiina gadanaya kan dibadda ka yimid daroogistaha ee nolosha ka dhacay idinka ini dulaysanaya ya wuxuu raadiyaa siduu idinka inii kala jabi lahaa adigu reer hebel baa tahay adigu reer hebel baa tahay wiil maanta hadlaaya maxaa hadalkiisa ka mid aha qofka markii la dilo dhahay waxaa la yidhahdaa yuuya ninka la dilay idinkaa laydinku arkaan leeyahay dullinimadaas dhalinyaro idinkaa laydinku arkaan leeyahay sheergareeya barnaamijka maxaa 48 kaliya aad ugu jirtaan qabiil haddii laga hadlayo waa soo buuxinaysiin sheergareeya barnaamijka meel walba ku sheergareeya aad baan u xanaaqsanahay ku sheergareeya meel walba waxa xunba waa sheergaraysaan iyo qabiiladii كعان إن لا يدلني مال والباجوكتان دلية على شو شقيستيالك إن الرجادية إن لهري ودن كي يقطي إن النودي إذن كنا إن الدليستي عينو إسكسر حفيسي وقلب مسار الدع كسر ملها الكجران كسر ملها الكجران مركزات قول جاريسين مركزات مجحيليسين أقولان الدلني مذ ورمالو والبحال كان كقيليا مالو والبحال كان دليرة كلها الله واحد كفهمتان وإسكيري لكن ما أنتي وين تابت واحد كلي أن رادين إننا أنت سهيد إن درينتان إن عدلتين إن درينتان إن وحجرتين إن درينتان دتك ودن كوهراي إنتين إن درينتان دتك ما أنت أما ودن كيني كرا أما ودن كإيمن كرا إنك إنه يا إن درينتين ورم واحد سويسين أنت لين كدل إفسدوا ما واحد سويسين أنت لين كوكرجتو أنت ما سويسين كعان لا يا دليرو dhalinyaro ka kacaan leh iska kiciyo dulliga iska kiciyo aad iyo aadna waa inuu ku hambalyeynaa maanta aad baan inuu ku hambalyeynaa aad baan inuu ku faraxsana meel walba aad joogtaana sidaas oo kale taa leeyni karba inaad iska dulqaadaan
waxa ina duleystay war naftana marbay go'daan adigoo aan hadlin baa lagu dilaya adoo hadashay oo hadalkaaga duuban yahay oo maaragtay magac ka tagtay oo record dhigtay oo lagu leeyahay hebel intuu hadlay baa la dilay maxaad u dhiman weyd adoo aan hadlin oo afka xiratay oo qabiil inta lagu qufulay ama maaragtay lagu duleystay ama hoos u forarta haddana lagu dilaya maxay tahay ma dhimasho kuudnaan almiino dhimo mid xorriyada nin raga xabaddaa loogu talagala raggiinaan hadda jooga ee aad u malayso inayba nafta la ballameen war nin ragaa dhimashaa loogu talagalay nin ragi waa kii dagaalama nin ragi waa kii isxoreeya nin ragihi waa kii ismuujiya ma aha inuu derbiyada aad gashaan ma aha inaad garbasaaraha hoostooda gashaan no raganimada lagu sheegayo waa markaad xor tahay waay haddaad laakiin xor ahayn what kind of rag waxaa tahay ma jirto you are nothing iska kiciya goboleedyada axmed waais iska kiciya idinkaa iska kicin kartaan goboleedyada waxa inila haray oo intay meel kasta ininka reebeen oo meel kasta ininka duleeyeen oo meel kasta ininka xireen bay haddana idinkasaa inii galayaan meel kasta ininka xireen puntland maxay ku faanta annaga dawladda waxa way saa rabna kama helin annaga dawladda annagaa u ah hormuud annaga kana maxaa ka dhacay marka maxaa ka dhacay hal isbitaal ma haystaan waxa isbitaalada u joogana waa kuwii meelaha ka wada tego wada darogaystayaasha maxaa wadkanaad ku faani marka waxaasna waa qabyaalada layn tusa haddaad kowdii hore aad dhihi leedeen no waxaad noo hayso male waxaad noo qabateen male waxaad noo dhisteen male horey buu waxa laynii ka qaban lahaa sababta ah inaad sheegtaan baa la diidi laha laakiin waad u aamusteen oo qabiil baad ku difaacdeen ka gura marka miraheeda ka cuna maantaad haysiin miraheedi markii odayaashiin la dilay markii intii wax garanayso la fahmaya inay wax garanayaan laydinka laayay maanta idinkaa laydin layna baddaa laydinku guray gaalaa laydinka gatay waa laydin duleystay maanta haddana meeshii wadankiina yaa laydinku layna waxaasna maxaa keenay qabiil baa keenay waxaasna maxaa keenay dulli aan waxba kuu tarayn oo xabad xanjaab kuu goynayn oo aad qariso taasaa keentay midaas weeye midda keentay in maanta lagu dilo in maanta lagu ugaarsado taasaa keentay marka adigay kuu taalaa inaad iska dulqaado every gobol meel kasta oo dowlad goboleed ka jirto dhalinyarada joogta waxaan kula dardaarmaya inay kacaan inay iska dulqaadaan war hadday hayni laayaan adduunka dhan hayni arko xabadaha hayni ku furaan idinkoo taagan record baad ka tegaysaan iyaguna meeshay gali lahaayeen baa la rabaa idinkana xorriyad baa inta idinka damaysaa ku noolaanaysa intiina dhimanta ma ogi everywhere waa in laga kacaa waa inaad ka gilgilataan gumaysiga ini saaran gumaysi baa ini saaran dhalinyaro wadankiini baa laydinku korgadanaya noloshiini baa lagu ciyaaraya qiimihiini baa la dilaya haddana maxay ahayto raalli baad ku tihiin haddana raalli baa ku tihiin wadkaan ofragaa tahay marka maxaa tahay raganimadu ma inaad hoos u foorarsataa ma inaad dullowdaa ma in qabiil lagu shubtaa ma in lagu maalin walba xabad sidii neef ari xero ku jira maalin walba xabad lala baxaa taasaa raganimada ku faanayso ma inaad guur weeshaa sababta ah kulligiin baaga muddaatiin maxaa guursataan wixii maanta meesha wada taagnaa iyo kuwa ka badanba haddii la tiriyo 2 iyo 3 baa reer kale sababtoo maba awoodaan maba shaqeeyo jaamacad buu ka soo baxay intaasoo san wax soo baranayay shaqo wuu waaye wuu moral jabo raganimadii baa ka nimad maxay tahay raganimadu haysto ninka ragii hawu meel ku gaara markii wix uu ku hawana maxaa wax u baranaysiin waxa wax u baranaysaa inaad meel gaarto is anfacdo markaad meel intaa soo gaarto is anfici lahayd noloshii hoos kuugu dhacdo waa isnici haddaad isdilin baaba nasiib leeda maxay tahay raganimada marka aad fiirsanayso ku harta maxay tahay raganimada ku harta idinkaa ina weydiinayaan dhalinyaro idinkaa ina weydiinaya iga soo jawaab maxay tahay dhalinyarada raganimada ku harta no raganimo ma haysatid rag waxaad noqonaysaa markaad hamigaagii aad ka jabo keento markaad diiddo dulinimada markaad diiddo inaad hoos aado no ha yeeli isbedel waxaa keeni kara dhalinyarada keeni karta ku dayda turki ku dayda saambul yar turki ku dayda wadamada afrikaanka ah ee idinka liitay ee maantana horumarka maraya ku dayda meelaha qiimaha leh ku dayda intaad oday qabiil kugu shubayo ku dhahay reer hebel yuuyaa kan la dilay reer hebel ku dhahay intaad dhagaysanayso berrina magtaada qaadanaya intaad dhagaysanayso ku dayo dadka fiican ku dayo dhalinyarada fiican oo adduunka
did kudayo kuwa kudayo markaasaad sumcad yeelanaysaa maxay ku badbaadeen turki markasta waa kusoo celinaya turki maxay ku badbaadeen hadday dhalinyaradooda kici lahayn haddayn baabuurta isu dhigi lahayn haddayn u kori lahayn maanta gumaysay ku jiri lahayn dowlada shisheeyaa qabsan lahaa dowladahan hadda ay ka baxsan layihiin iyagoo madaxweyne leh baa wallahi gumaysan lahaa markaasay wada tahriibi lahayn markaasaa macdantoodana la guran lahaa maanta waxaan daawanayay nin caddaana oo Soomaaliya meel kamida jooga oo baadiye wareegay oo bahal yar wata saasuu dhulka u saari meeshii dahab ka qayliyo uu qodi bahal yar oo dhalaalayo kala soo bixi oo dhagaxa boorsadu ku ridan haddana bahalku marin sidii isagoo miina baaray meeshii ka qayliso haddana qodi lacagtii bahalkii uu kala soo bixi adigana waad ka qatanta waa mid lagugu dilaa waa mid lagugu tahriibinaa shame of you wallahi billahi aad baad u liidatiin ragin aad baad u liidatiin in leey waliba dhalinyarada wax barato war waxbarashadu maxay tartaa waxbarashadu waxay tartaa inaad ka fiishan fogaato inaad ka dheerayso qofka aan waxba aqoon inaad ka aqli badnaato kan jaahilka ah laakiin kaaga wax bartay hadduu ka hooseeyo kii jaahilka ah waa nasiib daro maamul goboleedya inay xirxiran maamul goboleedya qabiil in ku kala shubay maamul goboleedya in ku danaysta waliba maamul goboleedyadu yaa waay idinka magaciina yaa la wataa waa reer hebel laakiin laba saddex qof oo xaaran ku naxa in ku danaysato in gadata dhalinyaro ka kaca meesha aad baad u liidatiin ka kaca meesha oo isbadbaadiya oo wadankiina badbaadsada oo qabiilka intaad qaadan lahayd qaado waxa wanaagsan ku daya adduunyada waxaad baratay history everywhere historyga iyo wixii soo maray waad akhrisateen kuwana dibadahay ku barteen way ka warhayaan kuwana dalkay wax ku barteen way ka warhayaan maxay ni anfici weyd maxay wax kuugu soo kordhin weyd maxay wax kuugu tari weyd ii sheeg bal maxay wax kuugu tari weyd maxaa waay no because waxatiin raganimo ma lihidin waad dhimateen mana is ogidin isbadbaadiya haddaad runtiin waa inaad isbadbaadisaan dhalinyaro waa inaad isbadbaadisaan waa inaad meesha ka kacdaan waa inaad naftiina iyo dalkiina iyo ilmihiina iyo dadkiina aad badbaadsataan waa inaad mustaqbal yeelataan waa inaad ku fakarto dalkanaad leedahay adigu meel kale uma socotid dalkanaad leedahay dalkana ilaahay kugu abuuray macdantaa ka buuxda khayr baa ka buuxa haddana waad ka baahan tahay oday baana kaa baahiyey iyo nin xunoo shilin raadisa oo madaxnimo raadinaya because fishan ma lihidin fish aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta dhalinyaradaas kuna daydaan leeyahay gobol kasta ha looga daydo ha isqabsato qayladu ha isqabsato dhalinyaro halayni arko dhalinyaro wallaahi oday dame oo hadla iyo oday dame in gata iyo maxay tahay nin xuno intuu madaxweyne isku sheego haddana wax walba inii diida nolol walba inii diida dhulkana in la galaad ka raysanaysiin horaad u soconaysiin magac baad yeelanaysiin dhalinyaro magac baad yeelanaysiin maantaad nooshahay markaad dhimato sumcad xumaha ku dhiman adoo dulyana ha dhimane maantaad nooshahay adoo xora dhimo maantaad nooshahay adoo isxorayso dhimo maantaad nooshahay adoo waddankaagi dheefsato dhimo maantaad nooshahay adoo adduunka wax la qaysato dhimo saasaan ku leeyahay waa in lagaa cabsadaa waa in dhalinyaro la idinka cabsadaa xooggii waddanka idinka waay dhalinyaro war maxaa inay ku daalaynaa maxaa naga qaylisiinaya waa layla yaab jira kuwa intay odayaalba intay isoo wacaan wallahi waxay dhihi jireen dhalinyaro ma jirta dhalinyarada wada daroogistayaasha noqdo sababta way ogaadeen maxaad ugu daali kuwaaga maa ka shaqaysato because ma rabaan qof wax dareensiiya qayladaydina maanta wax miraheedi waan hayaa maanta miraheedi u horeeyaan hayaa qayladaydi miraheedi u horeeyaan hayaa wax kastoo iga soo gaaray maantaan u aayaya maantaana helay inti maanta meesha taagnayd besa igu filan iyo in kaloo meelo kale ka kacda intaasoo isbiirsata waddanka dhan bay ii xoreynaysaa I'm so happy kaasay xoreynaysaa kaasaan leeyahay kaasaan ku faanaya kaasaana ninkii qiimeeya baa ii qiimaysan ani laakiin nin qabiil kugu shubanaya oo qabiil raba inuu kugu kala dilo oo qabiil raba inuu kugu hadlayo hayeelin baan ku leeyahay dhalinyaro qof dhalinyaro ah oo maaragtay dullinimo qaata waa dullinimo hayeelin dadkan qabiilka iyo qurunka ilaahay ka dhigtay oo aan waxba diin ka lahayn because way ku nool yihiin because qabiilkay ku nool yihiin because xaaraan bay cunaan marka ma rabaan noloshooda iyaga adduunkan bay u malayeen dhaldhalaalka adduunkay u malayeen nolosha
uma malaynin aakhiro inay jirto waan ku salaamamuno abaay aad baan ku salaamaya uma malaynin inay aakhiro jirto uma malaynin wadanku inuu yahay meesha kaliya ee la isku qiimeeyo qoom lagu qiimeeyo wadanku waa meesha qoon lagu qiimeeyo caalamku waa meesha qof qolada lagu qiimeeyo sumcad lagu yeesho haddaad sumcad isu yeeshana weligaa haddaa adduunka ka dhamaato ma dabar go-aysa laakiin haddaadan noqon qoon baaba-aad noqoni soo ha yeelinina dhalinyaro kaca in leeya dhalinyaro kaca iska saara ugu gala meelahay ku jiraan sababta wax inay qabanayaan male dowlad goboleedyadu inta inay dhahaan wax walba dowladda dhexe inay diidaan meel walba inay diidaan horumar inay diidaan baa haddana silca aragta u dhimanaysiin baa haddana silca aragta u dhimanaysiin see u yeelaysaa marka ha yeelin baan ku leeyahay ka kac baan ku leeyahay dhalinyaro isxoree baan ku leeyahay dhalinyaro ugu gal qof kasta hadduu xafiis fadhiyo iyo hadduu isbitaal joogo iyo hadduu meel haysto oo aanu kuu shaqaynayn oo meeshaas lagu adiga shaqadii lagu hayo aanay ka soconin ka kici ada ul wadata ka kici kan kaa dhintana xorriyad buu ku dhimanaa taallooyin baan u dhisaynaa annagana waa ini taageeraynaa dhista isbitaalada idinku dhista meela aad idinku ka shaqaysaan dhista meela laydinku daaweeyo dhista meela aad nafsadiina aad ku badbaadsataan marka waxayna ku dhacaan garabkiinaan taagana haddaad ismuujisaan dhalinyaro anigu qof baan ahay nadiifaa lay dhahaa garabkiinaan taagna wiil alla wiilkii diyaar u ah in wadankiisa wuxuu qabsado ama degmada uu joogo wax ka qabto diyaar baan u ah halkaasaan diyaar ugula ah wax alla waxaan awoodo baan samaynaa ilaahu maan baabuur u dhaqo maan sambuus iibiyo maan biyo banaankaa la fadhiisto sidaan samaynaya anay itaala meeshaan ka keenaya lacagtaan ku caawinaa anay itaala dadnimadeeda ilaahay baa isiiyey maskaxna ilaahay baa isiiyey laakiin aan helo dhalinyaro muuqata aan helo dhalinyaro dulnimada diida aan helo dhalinyaro maalin walba kii wax barta lagala baxo ogolaanin ha ogolaanina dhalinyaro yaan la ogolaanin hal qof laba qof oo dhalinyaro baan u baano aan soo qabto ninkii raba inaan soo qabto gacanta soo taago war maxaa nabad iyo nolol ku gaarta nabad iyo nololna lagu diidiyo lugaha la haystaayo kaas maanta aad ku baktinayso ku xabadaynayo ku dilaayo oo haddana meel aad isku daawaysa aweyday baa kaa horjooga oo aad qabiil ku taageertay oo aad qabiil kugula haray oo qabiil kugu lugooyay maxaad haysataa marka maba rabtid waa wadanba ma rabtid wadankaaga ilaasho wadankaaga u kac dhalinyaro qabiilka iska daaya dhalinyaro qabiil idinka inima qaado qabiil idinka ma aha noocini ma aha qabiilnimo idinka maanta in qabiil laynu ku shubo 20 century in qabiil idinka uu ini galo no dhalinyaro no ragga hore aan weynay ina ini weyno ma rabno kaca in leeya dhalinyaro kacan le waxaan la xabeebsado la qaylinayo waa idinka dartiin faa'iidadiinaan rabaa noloshiinaan rabaa magaciinaan rabaa sumcadiinaan rabaa haddii ilaahay ituso idinka sharaf leh oo Soomaali ah oo calanka kaas u babanaya cawaale u saa u babanayaan rabaa haddaan dhintana inaad adduunka nolol iyo farxad iga damaysaan baan rabaa ma rabo inaad wada juqraan noqotaan odayna uu kugu aday inaad badaha ku dhamaataan no in lagu dilo no adoo aamusan in lagu dilo hadal intii lagu dili lahaa hadal waad ku badbaadi hadal sheeg waxa jira iska celi dadkan ku gadanayo iska daaya qabiilka dhalinyaro yaan soo qabanaya gacanta soo taago qofkii raba fikrad inuu ku darsado arrintaa maanta meesha ka dhacday wiilkaa la dilay meel walba maalin walba dhalinyaro lagu dilaa kuwa dowlad goboleed waxaa jira habeen walba mid lala baxo oo aan la hadli karin dhalinyaradii joogtay dulli ay wada noqdeen rag baan ahay nin baan ahay baa lagu dhihi nin aanba xataa cadowa iska celin karin oo heeryada iska ridi karin ninkuu yahay muxuu yahay nin ma tihid ha sheegin beenta ninnimadaada halkaa soo dhig ilaahay baa adduunkan mas-uul kaaga dhigay ilaahay baa ku doortay ilaahay sumcaddii iyo karaamadii iyo magacii uu ku siiyana waa dulays waa disheen nimanka Soomaaliya haddaad tihiin weliba dhalinyarada haddaad tihiin iga daa nimanka hore waaba kuwa wadanka diidan inuu dhismo xaaraanta ku naaxay dhalinyaradina waa diideen sababta maba dareensanaba wax ay yihiin iyo wax adduunkan loo keenay wax u nool yihiin maba ogaba dhalinyaradu wallahi inayna ogeyn dhalinyaro qof walba waqtigiisu dhimana laakiin waqtigaaga aad dhimanayso xorriyad ku noolow inta ku hartay saacadaad ka hor ma dhimanaysid waa arrintiisa kaliya haddaad soo baxdo oo wax
oo iska celisay cadow wallahi inay xabad kasta lagugu furo baasukayaal haddii lagugu soo rido ma dhimanayo ku cimro qaado turki ku cimro qaado meeqa kunay ahayn dadka soo baxay diyaaradaha lagu dul rishaynay dabaabaadiyaasaa u yaacay meeqaa dhimatay intii toodu gashaa dhimatay oo loogu talagalay inay maalintaa baxaan daasid waddankiina wuu xoroobo xor buu ku noolaada ma dhimanaysiin waa arrintiis soo kaca waddankiina xoraysta iska daaya wadnaha aad caloosha inay dhex yaalle yaan soo qabtaa oo diyaara oo igala qayb qaadanaya barnaamijka dhalinyaraan u baahna kaca in leeya dhalinyaro kaca waxbarashadiina ha muuqato caqligiinu ha muuqdo awoodiinu ha muuqato aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhalinyaradaas aad baan u hambalyeynaya gabdhihii ka hadlay meesha aad baan u hambalyeynaya wiilasha ka hadlay aad baan u hambalyeynaya intii soo baxday bal adigu arag maanta dhalinyaradii soo baxday hal oday lama socon oo hal islaan lama socon oo hal qof weynii lama socon because kulligood waa xaran ku naax kulligood waa dadka qabiilka waaba ka xun yihiinba intaa soo baxdayba ka xun yihiinba sababta qabiilkay aaminsan yihiin sababta qaranka dumay aaminsan yihiin sababta nolosha xun bay rabaan sababta kulligood cadow way u wada shaqeeyaan laakiin wax kasta idinkaa ka awood badan wax kastana idinkaa ka quwad badan quwadiina allah ini tuso dhalinyarada quwadiina allah ini tuso wax idinka quwad badan ma jirteen ilaahay quwadiina ha ini tuso garabkiinana ilaahay ha galo cadowgana haddaad iska qaadaan ilaahay baa ini kaalmaynaya ilaahay baa ini garab istaagaya qof ilaahay haystana ma lumo qof ilaahay garab taagayana ma qasaaro ogaada midda qabiil iyo qof ilaahay la socdo qofka ilaahay la socdaa guulaysta 30 sano qabiil wax keeni lahaa 30 sano qabiil wax tari lahaa waa kuwaas gaalada intay tageen ay baaranayaan dhulki oo macdanti ka guranayaan waa hal nin oo kaligiis oo lugaynaya markaasuu wadanka meesha ugu shishaysan joogaayo oo baaranaya caadi isaga socdaayo baaranaya hadba meel qodanaya soo nasiib darma kuwa korkaa ka arkayo fiirsanaya waxa uu sameynaya dadnimo xumada halkaas ay joogtaa dullinimada halkaas ay joogtaa markaasaa hadlaynaa haddana aad iyo aad baan u nasiib daranaha wallahi haddaan soomaalina sababta waxaa la yidhi dad haddii qofka hormuudka u ihi uu ka halaabo oo ka dhammaado oo waxgarad la-aan ka noqdo waa baabacaan adduunka dadkan soomaalida dadkii ilaahay hormuudka uga dhigay ragga ahaabaa ilaahay ka qariyay oo dhammaadeen oo dulli noqdeen oo hoos galeen dee intii maatada ahaydna waa ku dul waa la tageen sababta waa qoon rogman raba waa qoon rogman raba waxaan leeyahay dhalinyaro labada xabbo oo inii harta ya labada xabbo oo halganto inii harta labadaasaa adduunka weligood wallaahi haddaad dhimato adoo halgamaysa haddaad dhimato adoo dalkaaga difaacanaysa haddaad dhimato adigoo xumaanta diidaysa haddaad dhimato adigoo aan ogolayn inaad dulli ku noolaato wallaahi weligaa magacaabu u taagnaana mar kastoo lagu arko waa lagu ducaynaa adoo qabriga ku jirta ilaahayna wuu kuu dambi dhaafaa laakiin dulnimaha ogolaanin dhalinyaro dulinimaha ogolaanin yaan soo qabtaa oo diyaara inta waa ka baxaa mugdiyaan ku jira mugdiga xabuka aad baan ugu tacsiyeynayaa gabadhaas wiilu ka dhintay ciyaalkaa uu ka tegay ilaahay ha laqmiyo kii laqmiyey sakariya okayda isoo qabo maa ka wadaa axmed saalax mascuud wiilka carabiga ugu qoran yahay axmed saalax mascuud maku soo qabana waan kaa qaado walaalkay adigana guuleyso insha allah okay kugu soo maqanya soo qabsood
aan qaban weyse uu go-ay isgooye yaa kale sakariya uma qabsamaaye yaa kaloon soo qabtaa maalin walba wiil baa nalka dilaya maalin walba dhalinyaraa la gowracaya maalin walba dhalinyaraa silicsan maalin walba gabar baa la kufsanaya maalin walba bal adigu u fiirso inta la dilo iyo inta la kufsado gabdhahana waa inta yaryar wiilashana waa inta wax baratay al-shabaab hadday soo baxdo dhakhtarka iyo maxay tahay injineerka iyo maxay looyarka iyo inta noo dhaqaaqaysay toogataa intaasay dishaa u qarxisaa kan jiriga ahay intaas u qarxiya kuwa oo madaxda laga dhigo waxay cunaqabateeyaan oo shaqo la'aanta ka dhigaan oo baabi'iyaan oo noloshooda la haraan waa dhalinyarada laba way kugu soo maqan yahay sakariye laba kaamiradu marka weligiin masliic baa ku jiraysiin imisaa dulnimo ku jiraysiin imisaa dulnimo ogolaanaysiin uu dhacayaa qabo sakariye balac u dhig telefonka ballaar u dhig saa u dhig sidaa usha u taalla camal saa balac camal u dhig ma kuu qabsamaayo wuu dhacayay oo kusoo wacay telefonka jiif u dhig telefonka saa u jiif sidaa u jiif telefonka aniga balac uu igu yaala ima soo qabanaysid ima soo gelaysid haddii kale telefonka balac u dhig sakariya balac u dhig uu kugu maqan yahay haddii kale axmed caddaan soo qabanaa soo qaba leh haddaa markaan qaban weysa axmed aan soo qabanaa telefonkaagaan jiifin telefonka jiif u dhig dhalinyaraan u baahna qabadee uu dhacayaa asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. seertahay sakariye في عام الله الحمد لله. alxamdulilah intee kasoo hadlaysaa magacaaga runta waa sakariye miya ها intee kasoo hadlaysaa waxaan kasoo hadlaya Sacuudi Arabiya. maasha allah barnaamijku waa la socota waa ku arkaya maanta waad ku jirtay horta allah ku barakeeyo khayr allah ku siiyo sida aad wanaagga u jeceshahay ku soco barnaamijkaas seed u aragtaa dhalinyaradan maanta inay kacaan inay wax fahmaan iyo dhalinyarada doorkee bay leeyihiin dhalinyaro haddaad tihiin horta doorkee leedihiin maxaa door noocee aad aaminsantihiin inaad bulshada ku leedihiin ku soco halo halo wuu ka go-ay sakariye halo wuu ka go-ay samataraan soo qabanaa samatalisaa lasoo qabanaa markaa wuu ka go-ay wuu geli waaye maxaa samatalis wuuba isgoynaaba samatalis ma shaqeynaya samatalis maba kuu shaqeynaya markii wuu isjaraya maxaa mar kale gacan soo taago qofkii raba in lasoo qabto way dhaafo dad horaa lahay in lasoo qabo waa i dhaafteen kusoo ceshada gacanta soo taagta wiilkaa wuu ka xumaaday dabeeyuu joogay hawadaa ka xun taimaa socda dhaqsada laba qof oo dhalinyaraa u baanahay oon fikradooda helo inaa iswacyi gelisaan inaa idinku isguubaabisaan inaad maaragtay wixii qaldan sheegtaan xataa haddaan waxaan ku hadlaya ay qalad yihiin ii sheega waxaa dhahdaan maamo ha isdaalinin dhalinyaradan ma rabaan ama ma rabno ama nama qanciyo ama waxay sheegaysa kuma qancin waa dhihi kartaa fikradaada dhiibo adiga naftaada guubaabada waad u baahan tahay dhalinyarada guubaabi wixii maskaxdaada ku jira sheeg markaad halkan aad diiddo inaad fikradaada dhiibato ama aad diiddo inaad
cod adiga aleeda qof ku wacyigeliso dee dulnimadu kaa dhimanba ma jirto wax kaa maqana maba jiro markaa meesha ugu hooseysaad joogtaa soo dhalinyarada waxaan leeyahay wake up aan leeyahay codkiina kor ha aadaan in leeyahay waa inaad idinku isgubaabisaan waa inaad idinku iswacyigelisaan waa inaad kiina aqoontali kan kaleeto uu wacyigeliya waa in kiina aqoontali kan qabiilku la haray ee dulliga ah ee aan waxba baran ee hoogay ba-ay aad idinku u noqotaan hormuud waa inaad model noqotaan ma aha inaad adigu dulli noqoto model waa inaad noqoto waa inaad hogaamiye noqoto ilaahay baa hogaamiye kaa dhig waa inaad hogaamiye iska dhigto waa inaad is aaminto taasaad horta wax ku gaarayseen dhalinyaro isma aaminsanidin maba taqaanin waxaad u nooshihiin ma taqaanin waxa idinka aad leedihiin soo waa dhibkeeday leedahay marka dhalinyarada mar kastay jiifaan axmed walaal axmed saalax walaal mar kastay jiifaan dhalinyaradu axmed saalax mascuud camaari mar kastay jiifaan dhalinyaradu mar kastaad jiiftaan walaal marka waxa weeye isma aaminsanidin iskuma kalsoonidin qofku waxa weeye hadduu isku kalsoon yahay wax qabsadaa qofku laakiin hadduu isku kalsoonayn oo self confidence aanu fiicnayn oo uu isliidaayo oo markasta hadda fiiri qofka maaragta markasta hadduu aaminsan yahay inuu dadka ugu liito inaadan wax hadli karin inaadan wax qabsan karin marka dambe meeshaasaad aadaysaa dhinacaasaad u janjeersanaysaa waa inaad aaminto waa inaad naftaada ku kalsoon tahay waa inaad qof kasta iskala sarrayso waa inaad hawi leedahay waa inaad hami leedahay meel aad ku socoto fiisha fog waa inaad leedahay dhalinyaraa tahay shabaab baa tahay kuwii ilaahay uu adduunka ugu talagalaa tahay so way aad marka hoos isu dhigaysaa nasiib daradayna haysato waay waana waxa keenay in layni ku shaqaysto waa waxa keenay oday inuu gumaysto waa waxa keenay in qabiil layni ku hogaamiyo midaas waay meeshaas waay meeshaa ka dhimateen ilaa ataa la imaataan oo naftiina aamintaan oo aamintaanna wax qabsan kartaan wallahi meel ma gaaraysiin axmed cadde haye abo axmed cadde aday kugu soo maqan yahay walaal taas ilaa aad ka baxdaan dhalinyaro meel ma gaaraysiin kulligeen waxayna ka muuqataa iskuma kalsoonidin nin raga oo aan isku kalsoonayn halkaa hadli karin xataa kaamirada xataa waa ka dhumataan markay xataa soo galan kaamirada waa iska qariyaan because ma qabo naftiisa kuma kalsoon ma qabo self confidence ma qabo isma qancin karo dadka ma hor imaan karo waa nasiib darada jirta waana nin dhan oo ilaahay ugu talagalay inuu wax maamulo see wax ku maamulaa marka kaas no waxba ma maamulays wallahi inaad waxba maamulayn adaa lagu maamulaya adaa lagu gumaysanaya because noocaasaa tahay nooca isduleeyaa tahay adaa isdulaysa waan lagu sii dulayna qabadee axmed wuu kugu soo maqan yahay wuu kaa go-ay marka ma rabtaan inaad ka qayb qaadataan waa inii jeedaa waan iskaga baxaya marka waxaan leeyahay dhalinyaro kalsooni muujiya dhalinyaro isku filaansho muujiya dhalinyaro is aamina isma aaminsanadina is aamina in leeyahay aamina inaad xoog tihiin aamina inaad cududi wadanka tihiin aamina inaad qof kasta oo maaragtay adduunkan inaad idinku tiirkiisa tihiin inaad tihiin kuwii maanta maamuli lahaa koonigan inaad tihiin kuwii muuqan lahaa inaad tihiin kuwa laga cabsan lahaa inaad aamintaan waay waa inaad isku kalsoonaato kalsoonida waa inaad la imaataan dhalinyaro naftiina waa inaad aamintaan dhalinyaro waa inaadan ka damaynin oday waa inaadan qabiil ka damaynin qabiil waxba kuma sheegayo 30 sana laga yaabaa inaad jirto dhalinyaradii dhalatay markii lasoo qaxaynayni wankii 30 sano waa wax yar inay ka dhimo sababta 24 iyo 25 jirtay 26 wax inay ka dhiman baaba iska yarba waad garanaysaa marka meesha uu qabiilku geeyo waad garanaysaa nolol xumo iyo dad aan muwaafaqo lahayn meeshay geeyeen wadanka عليكم السلام أم سلمى aad baan ku salaamay marka waxaan leeyahay dhalinyaro isku kalsoonaada iskuma kalsoonidin barnaamijkana share garay qof ka qayb qaadanaya ma jiro dhalinyaradu waa wada caradeen because waxa weeye waa dad waxa weeye hadda meelo waxaa jira aad yaabayso boqolaal baa waxay kugu soo darsanaya meel aadan garanayn haddaad gasho oo dhagaysato waxay ka hadlayaan dhalinyaro waxa ku jira waa dhalinyaro waa gabdho iyo wiilal inta ugu badan intaasoo kun baa arkaysaa online ku jirta waxa ay ka hadlayaan waa natin wadan bay ka hadleen naftooda ay ka hadleen gubaabi kale ay wadin waxay ka hadlayaan haddaa dhalinyarada dhagaysato waad nacaysaa marka dhalinyaradu waa dhalinyaro noocaasa
meel bay isku urursanayaan way kugu soo darsanayaan markaad fiiriso dhahdo bal dhalinyaradan wax yar dhagayso waa nacaysa wax aan ilaahay iyo aakhiriyo adduunba laga jeclayn bay ku sheekaystaan bay ka wada hadlaan bay isku raacaan aawo marka waxaad noqoteen group dhan baad noqotay meel baad gashay taleefon dhan meel dhan oo WhatsApp ay samaysteen waa soo gashay haddana waxaan macno lahayn baad ka hadlaysaa wadankaaga kama hadlaysid adiga naftaada kama hadlaysid mustaqbal kale kama hadlaysid adduunka saad ula tartami lahayd dhalinyarada socota kama hadlaysid adduunyada dhalinyarada saa meel wax ula qaybsan lahayd kama hadlaysid so dhalinyaro marka waa taa anigu aad baan idinka warhayaa aad baan uga warhayaa meelaha ay ku sheekaystaan meelaha ay galaan meel wax ay ku sheekaystaan wallahi billahi buugaag dhan baan ka qoray oon haya sababta way ugu soo darsadaan waan dhegaystaa waan u galaa ma iska tuuro kii ugu soo darsada ma tuuro waan dhegaystaa waan qoraa maalin walba topiga ay ka hadlaan iyo mid walba wuxuu ka hadlay mid walba magac feegu wataa mid walba muxuu ahaa sawir beenaa u saaran mid sawirro xunxun baa u saaran markay hadlayaan waa naxaysa iyo waxay isu dirayaan iyo waxay ku wada sheekaysanayaan dadka dhan oo meesha isugu yimi marka dhalinyaro waxaas ka gudbaa in leeh wallahi waa ini jecla wallahi noloshiinaan rabaa oo waa ini jecla oo mustaqbalkiinaan rabaa oo dhalinyaro muuqata oo wadan iyo dadnimo la imaataan rabaa adduunka ku dayda oo iska daaya maalaayacnigan aad ku mashquulsantihiin oo iska daaya meelaha intaad ku ururteen aan macno darrada aad ka samayn mar dhan baan rabaa barnaamij inaan ka sameeyo waa nood garaystaa mid walba maalin walba qodob baan rabaa inaan kasoo qaato ay ka hadlaan meel walba iyo meesha ay kaga hadlaan iyo toobigeedana wuu ii qoran yahay iyo meesha aan kasoo qaadana waan sheegaya ballan waayo inaan barnaamijyo dhan inay ka sameeyo taas way aan u nood garaysto marka dhalinyaro waxaan leeyahay adduunka la socda oo macno darrada iyo waxa aan nafta lahayn aad ku mashquulsantahin iska daaya aakhirana wax inii tarayn adduunkana ku habsaaminaya iska daaya adduunkana waad ku habsaanteen waqti yar buu haystaa meeshuu wacyigelin aad laha ama wax kale baran laha ama dan kale ku mashquul laha ama maskaxdiisa korin laha meeshaasuu gelayaa wax ay ku hadlayaan waad naxaysaa waa waxa in laha iska daaya marka iska daaya dhalinyaro dantiina ka hadla dhalinyaro meesha ka kacayn leeyahay kaaga fiicanow kaagan xune haray waani oo dhalinyaro idinkaa ismaqashaan idinkaa isfahantaan idinkaana isku afe isla hadla oo wacyigeliya oo barnaamijyo furta oo meelahan aad ku jirtaan macno darrada uga hadlaysaan isku wacyigeliya gabar iyo wiilba way ku jiraan xataa wiilal kaliya ma gabar iyo wiilba way ku jiraan haddana wax nafle laguma sheegayo soo nasiib darro maaha marka yaan soo qabtaa mar kale aan jaanis siinaa yaan soo qabtaa mise waa soo gabagabeeya soo qabsada qofkii maago idinku in dhex yaalla hal wiil baa uga baahnahay oon 2 su-aalood weydiiyey bes carwaakaasaa la helo kulligood waxa waaye ka wada daateen okay aad baan inii salaamayaa marka aad baan inii salaamayaa waxaan leeyahay ilaahay hayni soo hadeeyo ilaahay xoggiina hayni tuso ilaahay maskaxdiina hayni tuso ilaahay maaragtay xumaanta iyo habsaanka idinku haray hayni ka saara in leeyahay ilaahay hayni ka saaro ilaahay hayni soo hadeeyo xaqa allah hayni tuso kuwii muuqdana allah hayni ka dhigo dhalinyaradii maantana aad baan ugu hambalyeynaya aad baan ugu hambalyeynayaa abdi fataax cabdi fataax aye soo qabso waba isgooyaba cabdi fataax maxaa horuba iska jaraya taleefonkaagu xataa maba dhacayaba isgooynaa markiiba waxbaa kaa qaldan dib isu fiiri cabdi fataax marka waxaan leeyahay dhalinyaroy ya kuwa wax fahmo un allah idinka dhigo kuwa wax fahmo maaragta allah idinka dhigo kuwa dantooda ku mashquulan allah idinka dhigo xumaantana aad ku badateenna allah idinka yareeyaan leeyahay idinkana dadaal baa laydinka rabaa
iyo inaad iswacyi gelisaan, inaad kaaga xun garabka sii qabato, inaad maaragtay meelaha ku jirtaan wax fiican isugu sheegtaan, inaad isguubaabisaan, inaad maaragtay ogaataan war intaasoo kun baad tihiin, maxaa inaga qaldan, maxaa see wax u qabsanaa, xaggee hore ugu soconaa, see isu wacyigelinaa, see u noolaanaa, see waa inaad dhahdaan. hadda cabdi fataax waa kusoo qabtay mana dhacaye balaa kugu celinaa haddana hadda hadduu ku dhacayaa soo qabo waaye. cabdi fataax soo qabso adugu hadda wuu dhacayaa. balacna u dhig taleefonka ballaar u dhig saa sidaa u dhig haddaa dherer u haysa saa haddaa u haysa ma qabanaysa saa u dhigo sidaa u dhig. ay qabo hadda uu dhacaa waa go-ay haddana waxbaa kaa qaldan walaalkay ma kuu qabsamaayo kaa go-ayaa waxbaa kaa qaldan. 2 jeer baan kusoo qabtay uu dhacaa wuu isgoynaa waxaa kaa qaldan xaggaaga ka sax. waad goynay adaab goynaysay soo qabo maxaa u lahay haya khayr baan idin rajeynaa. waxaan leeyahay kaas difaacday idinkaa iska leh kaas ma aragtaan calankaas quruxda badan kaas baa dad ku tah wallaahi inuu qabiil waxba kuu tarayn, wallaahi inuu qabiil meel kaa bixinayn, wallaahi inuu qabiil maalin koobiyaa ku siinayn, magtaadu qaadan markii lagu dilo 2 oday intuu kuusoo fariistaan geed hoosti lagugu fariisto yaa magtaada lagu qaadan oo dhiigaaga la qaadan. wuxuu kuu taraya male intaas kaliya buu kuu taraya intaasuu kuu taraya. marka waxa weeye kaas adaa iska leh waxaadna adaana xoraysan karta, adaana adduunka ka taagi karto saa uga babin karta. haddii kalena adaa miiska hoostiisa gelin kara adiguna kolba isaga saa ka dhigto baad noqoni. haddaad miiska hoostiisa geliso adna waad geli, haddaa kor u qaado adna kor baad aadi. ku talagal sidaa isaga ka dhigto baa adiguna noqonaysaa. waa inaa horta taa ogaataan dhalinyaro, waa inaa midaas aada ogaataan horta middaa waa inaa ogaataan. aada iyo aad baana ini waxaan leeyahay dowladda nafteeda halkaan rin baa u marinaya. beryahan waxbaa la sheegaya oo qolooyinkii ah waxaan leeyahay hal indhihiinu ha furaadaan indhihiinaan leeyahay dowladda nafkeeda. dadka reer muqdisho waxaan leeyahay indhihiina ha furaadaan. beryahan xaalka warar badan baana soo gaaray, waxyaabo badan baa naloo soo diray. hadday waxaas run yihiin waa khatar soo socota, ha laga hortagaan leena, ha la ilaaliyaan leena. waxa weeye hadda wax walba katabad arrimuhu marna waa laga daba tagaa marna waa laga hortagaa. marka hadda kadaba tag hadhow intaad samayn lahay haya qabo hayo waayo kugu soo ceshay. hadda ka hortaga, hadda ha laga hortago. maalmaha informationo badan baana soo gaaraya, ma rabno inaan meelaha ka sheegno, laakiin waa inaad ka hortagtaan. waa inaad ciidankiina iyo sirdoonkiina waa inay aada u shaqeeyaan. sirdoonkiina waa inuu aada u shaqeeyo. soomaaliya sirdoonkiina waa inuu aada u shaqeeyo. cabdifataax soo qabo dhihi wuuna ka go-a haya hadda qabo waaye uu dhacaa. balac u dhig taleefonkaa dherer kuugu yaala umalaynaa war saa u dhig taleefonka koos aniga balacu igu yaalla haddii kale ilama qabsanaysa. jiifi taleefonka. waa ini salaamaya aad baa inii salaamaya. waa ka daadateen waa caajisteen waa arkaa sababta wanaagga waa in dhibaa khayrka waa in dhibaa moogta allah ini soo hadeeyo. aad baan inii salaamaya soo dhawaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idinka inii daran tahay midaas dhalinyaro haddaa kacdaanna idinkaa faa-iideysiin, haddaydnan kicinna idinkaa khasaaraysiin. taa ogaada horta. nood nadiifo qaran, nood nadiifo, nood midnimo qaran ya. annaga allahuma balaqto waajib baana saaran oo rag iyo dumarba waajib baa ina saaran oo wanaagga in laga hadlo ah waa ina soo gaarsiin. haddaad ka faa-iideysataan waa idinka, haddaad ka faa-iideysan weydaana allahuma balaqto. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.